waa dhacdo argagax leh oo 24 saacadood u dambeysay aad u hadalhayaan Soomaalida ku nool magaalada caasimadda ee Kampala ee waddanka Uganda. Waa gabar yar oo ay nafta dhaafiyeen hooyadeed dhashay iyo waliba habaryarteed. Haddaba sida ay dhacdadani u dhacday ayaynu barnaamijkana maanta aynu ku qaadaynaa. Hayeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda gelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar. Asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka. نفط موحد قسا نعم يسعلسا وخذنا وليسي ونقوم كل سماهيا إنا قنا نصيبك ما كنا حدونا Sauda ayaa lagu magacaabaa gabadhan yar. Waa 14 jeer. Waxay sababtay gacanta hooyadeed Yasmin iyo habaryarteed. Dhacdadan foosha xun iyo dilkan qorsheysan ayaa wuxuu ka dhacay dalka Uganda, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Kampala, subaxnimadii shalay. Sauda yar waa marxuumadda dhimatay. Waa gabadh yar oo saqiira oo da'deedu waa 14 jeer. Sauda hooyadeed iyo aabaheed waa ay kala tageen sanado ka hor markay nolosha isku fahmi waayeen. Sauda waa marxuumadda dhimatay waxaa la sheegay in ay soo korisay ayeeydeed hooyo, halkaasoo ay si fiican ugu soo barbaartay, nolol fiicanna ay kula noolay. Muddo sanad ka hor ayaa waxaa soo qaadatay hooyadeed oo degan waddanka Uganda, halkaasoo ay kula nooleed carruur kale oo ay hooyadeed dhashay. Waxaa sida la sheegay guri ku wada noolaa habaryarteed hooyadeed la dhalatay. Haabada arrimaha yaab kale ayaa waxay yihiin in Sauda si gaar ah loo dhibaateyn jiray maalin walba, xilli walba, saacad walba, sida dadka jaarku ay sheegeen. Ilaa hadda sababta miskiintan yar ee cunugta 14 jirka loo dilay ee loo dhibaateynayo dadka ay la nooshahay ayaa waa hooyadeed iyo habaryarteed. Dadka jaarka la ayaa waxay xaqiijiyeen gabadhan yar lagu hayo jirdil iyo cadaadis joogta. Waxaa kaloo ay noo sheegeen in guriga dusha laga xiri jiray maalin walba marka ay iyagu baxayaan, marka ay safar aadayaan iyo marka ay suuqa tegayaanba. Halkaasi mararka qaarkood ay ku xidhnaan jirtay 2 maalmood. Dadka jaarka la ayaa markay ogaadeen dhibaatada gabadhan yar lagu hayo waxay isku dayeen in la hadlaan Sauda hooyadeed oo ay weydiiyaan sababta sidan oo dhan loogu dhibaateynayo gabadhan yar 14 jirka ee iyadu dhashay. Balse waxay dhaheen Sauda hooyadeed waxay jawaab nooga dhigtay, waa ilmo yar oo dhib badan oo aad iyo aad u dhib badan oo nolosha nagu dhibtay. Balse dadka jaarku kuma ay qancin jawaabta ka soo yeedhay hooyadan ilmaheeda sidan u dhibaateynaysa. Haddaba arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in Sauda loo adeegsaday faashkaasi maadaama lagu dhuftay iyo qaybo kale oo ka mid ah jidhkeeda lala dhacay. Dilkan oo sida jaarku ay sheegeen ahaa mid qorsheysan ayaa waxay sheegeen in maalinkii dilku dhacayay guriga lagaga shiday sameecad si aan loo maqlin qaylada gabadhan yar, sidaasna ay ku dileen kuna qariyeen meydkeeda sariirta hoosteeda. Arrinta kale ee argagaxa leh ayaa waxay tahay in si caadiya isaga sii deganaayeen guriga uu yaallo meydka gabadhi yarayd. Waa dil arxan daran oo dadka jaarku aad ula fajiceen. Waa falka ay ku kacday oo dad ehel ugu dhowaa gabadhan yar. Dadka jaarku way la fajiceen falka ay ku kacday oo dilka gabadheeda iyo inay meydkeeda guriga la seexato iyadoo waliba meydku sariirta hoosteeda yaal. Waxay sii deganaayeen guriga 2 maalin oo ay sugayeen kharash ayay ugu safri lahaayeen waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi. Markay soo gaadhay lacagtii ayaa dhammaanba waxay ka guureen gurigii uu yaalay meydku. Waxay safar ku tageen waddanka Kenya. Hadda sababta aadka loola yaabay ayaa waxay tahay in markay tageen Kenya ay la soo hadleen dadkii jaarka ahaa una sheegeen in guriga uu yaallo meydka gabadhoodii Sauda. Yaab iyo argagax ayaa ku noqotay dadkii jaarka la ahaa ee dariska la ahaa. Isla markii dadkii jaarka ahaa waxay bilaabeen inay wargeliyaan laamaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliiska ee waddanka Uganda.
oo ah meesha ay dhacdadani ka dhacday. Isla markiiba waxaa yimi ciidamada booliiska, waxayna isku dayeen inay galaan guriga dhibta iyo dilku ka dhacay. Albaabkii ayay jabiyeen, waxaana halkaasi loogu tagay meydka gabadhii yarayd oo sariirta hoosteeda lagu qariyay, oo qaarkood jidhkeeda uu soo qurmayay. Hooyada dhibta geysata ayaa xilligan ku nool waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. Subxaanallah, waa gabadh yar oo 14 jir ah oo faashinta lagu garaacay ilaa ay naftu ka baxaysay. Markii ay dhimatayna sariir hoosta laga geliyay. Gabadhan yar qayladeeda si aan loo maqlin, guriga ayay sameecado heesaa ku shideen. Waa hooyadan dhashay iyo walaasheed oo ah gabadhan yar habaryarteed. Muddo 2 maalin ah ayay guriga sii deganaayeen iyagoo iska caadiya oo ah shidan ama shidan. Waxay sugayeen biil ama lacagtii ay ku safri lahaayeen oo ku aadi lahaayeen Nairobi. Markii ay lacagtii u timina waaba ay tageen oo Nairobi ama Kenya ayay ka soo jeesteen. Telefoon ayay soo waceen xaafadii dariska ah. Gabadhii yareed aan dhalay ayaanu dilay aniga iyo walaashay ee fadlan soo aasa ayay ku dhaheen dadkii dariska ahaa. Fajaciya ama kaaga ayay ku noqotay dadka dariska iyo guud ahaanba Soomaalida ku nool waddankaasi Uganda. Dhacdadan argagax leh ayaa qabsatay baraha bulshada 24 saacadood u dambeysay iyo aad loogu falaqeynayay guud ahaanba baraha bulshada. Sawda waa 14 jir, waxaana soo qorsatay ayeeyadeed oo ku soo korisay nolol raaxo leh, balse hooyadeed ayaa soo kaxaysatay oo tiri gabadheeda yarana haysanaya, waxayna la noolayd caruur kale oo iyadu dhashay. Sawda aabaheed iyo hooyadeed waa kala tageen markay nolosha isku fahmi waayeen. Haddaba daawade, maxaad hooyadan iyo habaryartan arxanka daran aad ku tilmaami lahayd? Fal noocan oo kalaase hore ma aragtay? Fadlan aan u ducayna gabadhan yar in Ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo. Muuqaalkana sii la gareeya siina sheer gareeya si loo soo qabto hooyadan iyo habaryartan arxanka daran ee hadda ku dhex dhuumaalaysanaya gudaha waddankaasi Kenya.